mudanayaal wasiir gudoomiye iyo guddiga sharafta leh dhammaantiin sharaf bay noo tahay inaan ku soo dhaweyno galmudug waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dalkiinii aad guddiyada iyo mas'uuliyiinta wasiirada u ahaydeen oo u hayseen hawsha muhiimka ah ku soo dhawaada waxaan leenahay runtii waa didiile iyo fursad Soomaaliya maanta u dhalaalaysa in dastuurkii oo heer gabagaba jooga dib u eegista dastuurka lagu soo kala bixiyay dowlad goboleedyada dalka ka jira caawana aan isleenahay waa galmudug waxay u tahay diyaar si buuxda inay uga gudato waajibkeeda iyo inta ugu aadan insha Allah annagu haddaan reer galmudug nahay xorriyaddii iyo dib-u-aasistii qaranka Soomaaliya waxaan ka soo qaadanay qayb libax maanta inaan dastuurka ugu horumarno jawaabtiisa iyo kasoo jawaabistiisana kalsooni buuxdaan ku qabnaa marka insha Allah sidii aad ugu tala gasheen hay-adaha dawladda ula wadaagaysaan shacabka qaybihiisa kala duwan ula wadaagaysaan qaybaha bulshada ula wadaagaysaan diyaarna waa laydinkugu yahay goob walba iyo si walba oo dastuurka ay tahay in xoogaa loo noqdo jawaabtiisana waqtiga ugu tala gasheen way naga soo gudbaysaa haddaan nahay reer galmudug insha Allah tacaala dib baan uga hadli doonaa oo fariisan doonaa golayaashii iyo hay-adihii dowladda sidii horeba qorshihiina iyo jadwalkiina u ahaa hadda caawa waxaan leenahay waa soo dhaweyntii waa idin soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay ku soo dhawaada galmudug oo didiilo cusub iyo iftiin cusub u muuqdo insha Allah annagu dhowaan sida ogtiin baan doorasho galnay weli howlo waaweyn oo dastuuriyan hor yaalla oo ay tahay inaan marno annagoon gaarin inay howlaha ayagu si habsamiya noogu socdaan dhinac walbay ahaayeen aad iyo aad waxay idin tusinaysaa sida aan diyaar ugu nahay inaan soconno galmudugna sidii uu sheegay senator cabdi qaybdiin wixii yaryaraa oo meelo ka dadabcay xilliyadii hore ay maanta tahay inaan daboolno si degdeg insha Allah mudanayaal soo dhawaada si nabad ah kalsooni ah niyad sami ah ku soo dhawaada noola wadaaga sidaad ugu tala gasheen hay-adaha dowladdana ula wadaaga qaybaha kala duwan ee bulshadana ula wadaaga maalmaha nala joogtaanna sidaanaan soo dhaweyntiina iyo niyad samidan ayaan kugu wadaynaa insha Allah galmudug annaga meelaha kale kama arag soo dhaweyn weyne sidaan dowladnimada Soomaaliya iyo nationalistnimada nooga go'an tahay arka annagu meelaha qarannimada laga gelinayo warman galmudug ka mid maaha inaan maanta dowladnimo adaygeeda iyo saldhiggeeda iyo jiritaankeedu waa dastuurka iyo dhammaystirkiisuna iyo qabyatirkiisuna waxay noo tahay guul weyn oo Soomaaliya maanta ayaan leenahay waa inta yar oo ay tahay aan dhammaystirno marka galmudugna waa ugu horreyn jirnay waana ugu hormaraynaa aad iyo aad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.